Saaxiibayaal halkan ku soo dhawaada waa Saciid Madaali Sports waxaynu fiirin doonaa kulamadii isbuucan la ciyaarayna eegi doonaa Arsenal oo hoggaanka sii dheeraystay Man City oo xilli adag gashay sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku dhiman daqiiqadaha u dambeeya sidoo kale waxaynu fiirin doonaa Man United oo dib u soo noolaatay Barcelona awood muujisay iyo sidoo kale wararkii u dambeeyay Champions League ayaynu fiirin doonaa haddii aan ku bilaabno kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Arsenal ayaa hoggaanka sii dheeraystay kadib markii ay 2-0 u garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Everton guushan waxay ka dhigan tahay in Arsenal ay hoggaanka ku hayso 9 dhibcood inkastoo kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu kulan baaqi u yahay sababaha ugu waaweyn ee Arsenal u shaqeynayso waxaa ka mid ah qaab ciyaareedka adag ee uu soo dejiyay tababaraha Mikel Arteta iyo sidoo kale soo bixitaanka xiddigo da'yar ah sida Marcus Thuram iyo sidoo kale dib u soo noolaanta xiddiga lagu magacaabo Kai Havertz ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee Arsenal u muujinayso awood fara badan Havertz ayaa noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal isagoo laga soo gaday xagaagii 2023 kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Chelsea saaxiibayaal haddaan fiirino kooxda Manchester City oo xilli adag ku jirta kadib markii labadii kulan ee ugu dambeysay ay bareejo ka qaateen kooxda Nottingham Forest iyo sidoo kale kooxda West Ham sababaha ugu waaweyn ee sababay inay City hoos u dhacdo waxaa ka mid ah hoos u dhac ku yimid mashiinka goolasha ee Manchester City Erling Haaland iyo sidoo kale Haaland oo horey u ahaa mashiin goolasha si fiican u muuqda garoonka dhexdiisa balse maalmahan aad u liita sidoo kale Pep Guardiola ayaa wuxuu yiri xaaladda maalmahan aad ay nagu adag tahay sababtoo ah ciyaartoydii fara badan ee la keenay oo isla qabsan la sidoo kale 5 ciyaartoy ama 6 ciyaartoy oo kooxda ku cusub oo mar walba line up laga dhigayo taas ayaa hoos u dhacyada ugu weyn ee ku yimid kooxda kubadda cagta Man City sidoo kale kooxda naftarkeeda oo daalan oo 4 sano xiriir ah u soo maamuleysay kooxda horyaalka Ingiriiska sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee Man City oo waqtigiisa gabaabsiga yahay kuwaas ayaa ugu waaweyn sababaha ugu weyn ee keentay in kooxda kubadda cagta Man City hoos u dhacdo haddii aan fiirino Liverpool ayaa ku dhiman daqiiqadaha u dambeeya mar walba kooxda Liverpool ayaa barbara waxay la gashay kooxda kubadda cagta Tottenham isagoo gool uu ka dhaliyay xiddiga lagu magacaabo reer Brazil ee Richarlison daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta arrintan waxay si weyn walaac ugu abuurtay Liverpool kooxda waxay ku dhibaatoonaysaa ilaalinta hoggaanka daqiiqadaha u dambeeya ciyaarta marar badan ayaa goolal daqiiqadihii ugu dambeeyay laga dhaliyay iyagoo ku waayay natiijooyin badan kuwaasoo 3 dhibcood mararka qaar ku waayay daqiiqadaha u dambeeyay ciyaarta sidoo kale haddaan fiirino tababaraha cusub ee Arne Slot ayaa wajahaya cadaadis badan si kastaba ha ahaatee Liverpool ayaa waxay berito la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta Galatasaray garoonka Anfield haddii aan fiirino Tottenham oo line up ka maqan oo ugu yaraan 8 qofood oo line up ka maqan haddii Anfield barbara u keenayso Galatasaray haddaba maxay keeni kartaa ayaynu fiirin doonaa haddii aan fiirino kooxda Manchester United oo dib u sameynaysa guushii kadib 3 xilka ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa waxay Manchester United ku sii haysay booska saddexaad iyadoo guuldarrooyin ay ku dhaceen kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Liverpool ayaa sababtay in Manchester United ay kaalinteeda saddexaad sii adkaysato tababaraha cusub ama tababaraha ku meel gaarka ah ee lagu magacaabo Mikel Carrick ayaa kooxda u sameeyay nidaam ciyaareed oo si fiican kooxda iskula jaanqaado La Liga haddaan fiirino Barcelona awood muujinaysa kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxay 5-2 kaga adkaatay kooxda Sevilla xiddigii ugu aftiinka badnaa ama xiddiga garoonka wuxuu ahaa Rafinha kaasoo dhaliyay hat-trick sidoo kale guushan Barcelona waxay ka dhigan tahay in hoggaanka La Liga ay kusii qabanayso 4 dhibcood kalsooni weyn ayaa ka muuqata horyaalka dhanka kalena berito waxay ciyaarayaan UEFA Champions League taasina waxay u tahay niyad fiican maadaama ay xalay ku adkaadeen 5-2 beritana waxay u baxayaan kooxda kubadda cagta ee Newcastle United haddii aan fiirino Champions League ee wararka ugu dambeeyay ee laga helay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay u soo noqday 2 xiddig oo muhiim ah kuwaas oo kala ah xiddiga lambarka 9aad ee gool magafaha Kylian Mbappe iyo sidoo kale xiddiga khadka dhexe ee reer England Jude Bellingham ayaa u soo noqday Real kuwaas oo diyaar u ah kulanka berito ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Manchester City sidoo kale Chelsea FC ayaa la kulantay guuldarro culus oo Yurub ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyay in Chelsea ay ku sugan tahay xaalad adag taasoo ka dhigan in soo bixitaanka berito ee Champions League ay 70% aysan caddayn halka PSG ay tahay kooxda ugu badan wararkaas ayaa ugu weynaa warbixintii hadda naga soo gaartay dunida
ciyaaraha. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal, ha iloobina subscribe saarto, like na dhahdo videoga, share na garayso. Waa mahadsantahay, subscribe na soo dheh fadlan.